السلام عليكم دمان أصحابتي وسلامتين مeel kasta aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada channelka Xaydartay in badan oo asxaabta kamid ah waxa ay soo weydiiyeen qaabkan u sameeyo muuqaaladeeda una qurxiyo waxaan idin bilaabi doonaa course ku saabsan barnaamij kamid ah barnaamijyada wax lagu edit gareeyo sidoo kale muuqaalada lagu qurxiyo barnaamijkaas oo kamid ah barnaamijyada aan u adeegsado si aan u qurxiyo muuqaal barnaamijkan idin bilaabi doono waxa lagu magacaabaa Sony Vegas Pro 16 waxa uu kamid yahay barnaamijyada ugu caansan ee loo isticmaalo qurxinta muuqaalada waxaan kugu bari doonaa koorsadan dhexdeeda qaabkaad u jarjar lahayd muuqaal sidoo kalena isugu xir lahayd muuqaal aad jarjartay sidoo kale waxaan kugu bari doonaa koorsadan dhexdeeda sidaad ugu soo dari lahayd muuqaalkaaga qoraal waxaan ka maqnayn sidoo kale sidaad u sameyn lahayd color correction aad uga bedeli lahayd qaabkii uu muuqday muuqaalka fiidiyowgaagu una bedeli lahayd qaab cajiib ah insha Allah waxaan ku ballan qaadayaa markaad koorsadan dhameysato inaad awood u yeelato inaad sameyso video dhameystiran tan kale waxaan ku siinayaa hal talo ha u baran koorsadadan xiiso dadku waxay u badan yihiin xiisoolayaal waxa ay bilaabaan laakiin inta dhameysa waa ay yartahay markaad baranayso barnaamij kamid ah barnaamijyada editing lagu sameeyo ama muuqaalada lagu qurxiyo waxaad u baahan tahay inaad yeelato dulqaad sidoo kale wax badan aad fadhido si aad u rumeyso riyadaada haddii aadan dulqaad muujin ma sii wadi kartid waayo wax ayaa waayi kartaa ama kugu adkaan kara markaad ku jirto editing haddaadan falkeeda gelin qaabkaad ku heli lahayd inta yar aweyday taasi waxay la micno tahay waad isdhiibtay kumana guuleysanaysid waxa aad rabtid inaad ka gungaartid sidoo kale waxaa lagaga baahan yahay inaad sameyso practical badan iskuna daydo cashar haddaad qaadato inaad sameyso mid la mid ah ama kasii fiicanba waxaan soo gelin doonaa course kan habeen kasta oo jimce soo galayo fadlan la wadaag saaxiibkaasi oo uga mid noqdo dadka ka faa'iideysan doona koorsada tan mahadsanidin